السلام عليكم daawadayaal kusoo dhawaada channelka maanta waxaan idin hayaa oo raba inaan ka hadlo balaar barasharka dhiikarku muxuu yahay dhiikarku waxa weeye dhiiga jirkaaga ku jira oo batay dhiiga jirkaaga ku jira markuu bato dhibaatooyin buu ku keenaya jirkaaga oo dhan dhiikarka waxa lagu qiyaasaa dhiiga wadnahaagu soo tuurayo iyo awooda ciriirka uu ku qabanayo ama barasharka uu ku qabanayo halbowlayaashaada moor oo dhiigaagu bato moor uu ciriiri ku qabto ama barashar ku qabto halbowlayaashaada marka ciriiri hadduu ku qabto halbowlayaashaada wuxuu ku keenaya heart disease waxa dabcaya darbiyaasha halbowlaha oo tubooyinku qaabo markii saa loo kala jiido waxa darbiyadooda waxay noqonayaan weak noqonaya saas u kala baxayaan marka balaar barasharka jirkaaga dhexdiisa ku soconaya markuu bataba halbowlayaashii inta ka banaan baa yaraanaysa marka ciriir bay noqonayaan wayna adkaanayaan marka waxa laga yaabaa dhiikarku sideedaba wuxuu qaataa muddo dheer qofka isagama soo baxo marka muddada dheer uu qaato laakiin damage-kii buu ku wadaa halbowlayaashaadu damage garaynaya wadnahaagu damage garaynaya maskaxdaadu damage garaynaya hawshii jirkaaga way ku socotaa adigina iskama aad warqabtid waxa laga yaabaa inaad wax symptoms lahayn laakiin dhiikarkii aad qabtid okay wuxuu damage-yadu ku keenay waxa way heart attack buu kugu ridayaa stroke buu kugu ridayaa kaliya fariisi buu kugu ridayaa maskaxdu ka halowdo kugu ridayaa marka sidee ku ogaanaysaa inaad dhiig qabtid waa inaad dhiiga iska soo cabirtid dhiiga normalka dhiiga ah oo markuu dhiigu normal yahay wuxuu u dhaxeeyaa between 125 120 ilaa iyo 100 kan sarana 120 waa inuu yahay kan hoosana 180 waa inuu yahay laakiin hadduu noqdo 130 kan sare kan hoosana noqdo 90 waxaad tahay stage 1 oo dhiikar ah haddii aad tahay hadduu ka weyn yahay hadda dhiikar baa laga helayaa marka dhiikarku muxuu kala baxaa dhiikarku wuxuu kala baxaa primary iyo secondary primarygu waa dhiikar aan wax koostiya lahayn dhiig baad iska qaaday one of the days maalmaha kamid ah dhiigga iska qaaday dan waxaad aragtay dhiigga inuu kugu siyaaday wax cilada ma qabtid laakiin kaasi muddo dheer buu qaataa maaha isagama soo baxo secondary dhiikarkana secondary hypertension mid kala dhaho wuxuu ka dhashaa underlying conditionku maxay yihiin marka underlying conditionka waxaa kamid ah dawooyinka iyo kiniiniyada waxaa kamid ah dawooyinka loo qaato koolka ama hargabka ama qufaca dawooyinka loo qaato breath controlka iyo ciyaalka in la isaga ilaaliyo dawooyinka pain killerka kuwa loo qaato dawooyinka daraagiska ah oo la cuno dadka qaarkiis cunaan oo daraaga waxaan ka wadaa illegal daraaga sharci darrada kuwa loo cuno oo daraaga ah khamrada baa koos garaysa waxa koos garaysa tubaakada koos garaysa ani daraag dhiigu siyaadiya secondary-gu siyaadiya waxaa kamid ah haddaba cudurrana way siyaadiyaan cudurrada siyaadiya waxaa kamid ah haddaad qabtid heart attack ama xanuunka wadnaha heart disease kasta oo wadnaha ku dhaca dhiigga badanaa waa siyaadiyaa haddaad qabtid kidney disease oo kaliyaha ka halaysan yahay ama cudur kaliyaha affect garaynaya qabtid isagana wuu siyaadiyaa sonkor haddaa qabtid iyadana way siyaadisaa haddii aad tumor qabtid ama buro aad ka qabtid
galaanka ku yaala kaliyaha dushooda haddii aad qabtid kaas haddii dumar kaa soo baxdo kaliyaha dushooda galaan ku yaala oo adenoid galaan la dhaho iyadan dhiikarkaa kugu siyaadaya haddii aad thyroid gland oo dhuuntan ku yaala thyroid gland hormoonka xukuma iyo blood regulationka xukuma hadduu kaa halaysan yahayna dhiikarka waa kugu siyaadaya waxa kaleeto kugu siyaadinaya tumoriska oo sida kelida kasoo baxaya saan ku sheeday oo galaanka kelida saaran dushiisa kasoo baxaya way kugu siyaadinayaan waxaad samayn kartaa marka haddii aad ka yadhahay 40 18 ilaa 40 inta u dhaxaysa haddii aad tahay wax risk factors aadan lahayn يعني risk factors waxaan ka wadaa family-gaaga haddii ay cuduradan soo sheegay ayaan lahayn yani kaba soo qadaaba hadduusan dhiig kar lahayn hooyadaa dhiig kar lahayn walaalaha dhiig kar lahayn dadkiina oo dhiig oo DNA-daada aad la wadaagtid ama dhiigga la wadaagtid adeerka abtiga haddayn dhiig kar qabinin haddayna cudurada wadna xanuunka ayaan qabanin oo laga helinin aadna ka yadhahay 40 labadii sanaba mar iska cabir haddii aadan risk factors lahayn dhiikarna symptomskiisa aad iska arag 40 sanana aad ka yadhahay iska cabir 1 year laakiin haddii aad 40 ka weyn tahay risk factorskana aad leedahay ama aabaha dadka aan risk factorska garanay waxaan ka wada haddii reerihiinu ay dhiikar laga helay awowaha abtiga adeerka habaryaraha walaalaha kula dhashay qoyska aad ka soo jeedid iyo kuwa kula siman walaalaha ay haddii dhiikar ay qabaan risk factors baa la dhahaa risk factors baa leedahay so haddii aad risk factor leedahay ama aad dhiikarka iska dareentid waa inaad labadii sanaba waa ina halkii sanaba mar iska qaadid dhiikarka dhakhtarna aad la kulantid marka dhiikarku wuxuu koos gareeyaa sidaan hore uga soo hadlayba inuu kaliyaha kaa fariisiyo because halbowlayaashii buu damage gareynayaa dhiigu marayay oo kaliyaha filter gareynayeen buu damage gareynayaa wuxuu kaa damage gareynayaa wadnaha halbowlayaashiisa adayg buu ka dhigayaa say u shaqeynayaan hawsha tirada badan ugu jira halbowl wadnihi uma dul qaadan karay inuu baambi gareeyo waxaas oo dhan inuu daadiyo mashiin caadi oo la geliyay weeye wax ka xoog badan marka stroke buu riday mideeda kaleeto xinjiraa ka dhalanaya haddii uu halbowlayaashu intay jiidmaan dhiiga ku qolaysmo xinjiraa ka dhalanaya stroke-gana taasaa kuu keenaysa wuxuu kaleeto kaa damage gareynayaa maskaxda ama halbowlayaasheeda ama adayg bay noqonayaan naaroo bay noqonayaan waxay kaleeto sameynayaan xinjiraa galaya hadda doona waa qarxayaa marka maskaxdii haddii uu kaaga ligareeyana brain damage baa kugu dhacaya waxaa kugu dhacaya in memory-ga kaa yaraado inuu kaa yaraadaa kugu dhacaysa waxaa kaleeto uu kugu ridi karaa in halbowlayaasha jirka caadiga sida calooshoo kaleeto uu ligareeyo wax triple A oo kaleeto la dhaho oo caloosha halbowlaha caloosha iyo wadnaha u dhaxeeya inuu saas oo kaleeto intuu u buurto uu hadhowto dilaaco buu dhiikarku kugu kalifayaa waxaa kaleeto marka risk factoryada baan rabaa marka inaan ka hadlo risk factoryada waxaa ka mid ah inaad weyn tahay age-ku wuxuu ka mid yahay risk factorska haddaad weynaatidba naaguhu haddii ay ka weynaan 65 hadday ka weynaadaan waxay khatar u yihiin in dhiikar laga helo nimankuna 64 hadday ka weynaadaan waxay khatar u yihiin in dhiikarka laga helo taas waxay ku cadaynaysaa age more weynaatidba more dhiikarku kugu siyaado waxaa kaleeto keena in dhiig kugu siyaado waxaa keenta hurdadu inay kaa yaraato dhiikarkay siyaadisa in hurdadu kaa yaraato waxaa kaleeto oo siyaadiya in uu kaa yaraado dhiigu inuu kaa yaraado
inuu dhiigu kugu bato waxaa kugu siyaadinaya sida hadayta uga soo sheegayba cudurrada oo sida kuwa wadnaha kugu dhaca, kuwa kaliyaha ku dhaca, kuwa galaaniska ku dhaca, kulli waxaasoo dhan dhiigga siyaadiyaan. waxaa kaleeto kugu kalifaya dhiigkarka kugu koos garaynaya rayska waxaan ka wadaa haddii aad qof madow tahay maaha because waa madowda inuu dhiigga kugu dhacayo, dhiigkarka kugu dhacayo, laakiin cuntada dadka madow cunaan dhiiggay siyaadisaa because cusbada ku badanaaba iyo subaga. waxaa kaleeto ay siyaadisaa cudurro kaleetay qabaan oo ah kuwa kasoo sheekeeyay ah oo dhiigkarka iyo strooga iyo sonkorta iyo waxaasaa ku badan dadka madow. so badanaaba waxay u badan yihiin in laga helo dhiigkarkii laga helo. waxaa kaleeto oo risk factorska kamid ah familygaaga inay qabeen. waxaa kaleeto kamid ah inaad overweight tahay. waxaa kaleeto kamid ah risk factorska inaadan exercise garaynin. so haddaadan exercise garayn dhiigkar baad khatar u tahay, haddaad overweight tahay khatar baad u tahay, haddii aad madowdahay khatar baad u tahay because dhaqankaaga iyo hiridhidka waxyaalahay cunaan dadka madoobi iyo dhaxaltooyada ay qabaan baa u koos garaynaysa. dadka khamrada caba ama tubaakada cuna ama daroogada cuna iyaguna dhiigkar bay khatar u yihiin. waxaa kaleeto ah dadka cuntada cusbadu ku badan tahay cunaha. haddii cusbadu kugu badato jirkaaga dhiigkar baad khatar u tahay. haddii potassiumku kaa yaraadana khatar baa u tahay. sababta waxa weeye cusbada iyo potassiumku opposite u shaqeeya. haddii cusbadu korodho potassiumka yaraanaya, haddii potassiumku korodhana cusbada yaraanaysa. bal haddii midkood dhinac u leeco dhiigkarkay kugu badinayaan. maxaa kaleeto oo kuu keeni kara dhiigkarka? stresska kuu keeni kara. haddii stresskaagu bato dhiigkarka waa aragtay Soomaalidu waxay yiraahdaan haddaan dhiigga ha igu karin bay dhahaan. so dhiigga ha igu karin macnaheedu waxa weeye stresska iyo naxdinta iyo waxaasina way badiyaan dhiigkarkay badiyaan, dhiigkarkay kugu siyaadinayaan. dhiigkarku marka risk waxyaalaha uu kugu koos garanay sida marka hore tab usoo sheegay waxaa kamid ah strooga, harataaga, sonkorta kugu badinaya, kaliyuhu kaa fariisinaya, subaga xun buu kugu badinaya oo faadka sida xayrta oo kaleeta ah baa jirkaa ku siyaadaysa because jirkaaga regulationkiisii oo dhan baa halaabaya. kan xun baa hoos u dhacaya. waxaa la dhahaa metabolic syndrome baa la dhahaa. metabolic syndrome kaasi oo dhiigkarku koos gareeyo waxaa kamid ah inaad sonkor qaadid, in subaga xumi kugu bato, in subaga fiican kaa yaraado. waxay kaleeto kugu siyaadinaysaa in ay dhiigkarku kugu siyaadiyo inuu baloogareeyo halbowlayaashaada jirkoo dhan, yani kuwa maskaxda ku jira ama haade kuwa lugaha ku jira haade inuu baloogareeyo buu kugu siyaadinayaa. haddaba maxaa lagu diagnostica sidee lagu gartaa inaad dhiigkar qabtid? normal dhiigkarkaagu marka uu yahay 120 kan sare, kan hoosena uu yahay 180. wixii ka sareeyaa waa abnormal. haddii aad tahay 130 89 haddaad gaadhid stage 1 baa tahay waxaa tahay hypertension. haddii dhiigkarkaagu ka haddii dhiigaaga sare dhiiga laba number weeye, numberka sare hadduu ka saraado 140 kan hoosena uu yahay 90 iyo above, markaas waxaad u baahan tahay inaad dhakhtar la kulantid. waxaad u baahan tahay inaad you have to check mar walba dhiigaaga. dhiigkar baad ama qabtaa ama aad khatar u tahay. so waa inaad dhakhtar u tagtid haddii uu 140 ka sareeyo, 140 hadduu yahay ama ka sareeyo, kan hoosanina uu 90 yahay ama ka sareeyo. 3 jeer markaad iska cabirtid baad ogaan kartaa oo 3 jeerba uu high yahay, markaasaad ogaan kartaa inaad dhiigkar qabtay in kaleeto. laakiin waxaa fiican inaad just dhiigkar baan qaba aadan iska orane
haddaabad aragtay dhiigaagu inuu ka weyn yahay 140 kan sare iyo 90 oo kan hoose ah waa inaad dhakhtar ula kulantid marka dhakhtarku wuxuu sameynayaa wuxuu ku oranayaa waxaan rabaa dhiigaagu si isu bedelo habeenkii iyo maalintii 24 hours qalab ku soo siinaya wuxuu ku oranayaa guriga la aad qalabkan 24 hours iska soo cabir guriga inta aadid habeen iyo maalin iska soo cabir waxaan rabaa inaan ogaado jirkaagu si uu regulate gareynay habeenkii inuu yaraanayo maalintii inuu yaraanayo wuxuu u cabirayaa adoo taagan waxa la cabirayaa adoo jiifa waxa la cabirayaa adoo fadhiya marka waxa la fiirinayaa sida jirkaagu u shaqeynaya waxaan dhikarmiyaa ma markaad just habeenkii kugu dhacama marka dhakhtarku wuxuu qiyaasayaa intaas mideeda kale wuxuu dhakhtarku sameynayaa inuu ka qaado kaadi uu fiiriyo ma kaliyaha ka halaysan ma protein baa jirkaaga ku jira wuxuu kale too qaadayaa jirkaaga balaarkaagu buu tasdigareynayaa wuxuu rabaa inuu fiiriyo dhiigaagu caafimaad ma qabaa mise waa jiran yahay wuxuu kale too fiirinayaa wadnahaagu ma ECG buu ku saarayaa wadnahaaga shaqadiisa iyo inuu halaysan yahay oo dhiiga soo bambagareynaya wax ka halaysan yihiin ama xinjiro galeen ama wax galeen buu tijaabinayaa marka kaba soo qaadi karkii waa laga helay dhakhtarkii marka wuxuu ku soo qorayaa waxaad isaga ilaalin lahayd wuxuu ku soo qorayaa hadeerba waad sameyn kartaa maaha in dhakhtar ku soo dawooyinka bas baad dhakhtar uga baahan tahay laakiin waxyaalaha aad ku yareyn kadid oo dhakhtarkuna kugula soo talinayo waxaa kamid ah inaad cusbada iska yareysid inaad healthy diet cuntid oo heartiga u fiican cunto wadnahaaga u fiican oo sonkorta ka yadhahay aad cuntid waxaa fiican inaad exercise gareysid 3 days asbuuci iyo ka badan inaad exercise hadaan tabar line oo qof waa yeelatay soco luge waxa la rabaa lugayn aad ku dhididaysid ama ku xiiqaysid laakiin waa dhakhtarkaaga la tashatid oo tiraahid dhakhtarow exercise baan sameyn karaa oo ku socon karaa xageese ku exercise gareyn karaa aad dhakhtarkaaga ku tiraahid waxa kale oo ku yareyn kartaa inaad weight iska ridid more aad weight iska ridid more dhiigaagu yaraado weeye waxaad kale ku yareyn kartaa inaad iska daysid khamrada tubaakada sigaarka waxyaalaha allaba uu ka dayliyo in la cuno sida tubaakada sigaarka khamrada daraagiska oo jirkaaga dhibta u keenaya because jirku hadduusan caafimaad qabin cudurrada kalena way kusoo weerarayaan dhiigkarka kugu badan sonkorta kugu badan waxaa kuwaan loo leeyahay dhiigay kugu badinayaan jirkaagay hoos way ka dhigayaan haddana awoodda dhiigga kugu karaaya yani marka waxyaalahaas ku oranaya dhakhtarku iska yaree haddii aad ka weyn tahay 65 aad qabtid underlying condition wuxuu dhakhtarku kuu soo qorayaa dawooyin aad isaga ilaalisid aad dhiigaaga ku yareysid dawooyin buu kuu soo qorayaa dhakhtarkaagu dawooyinka loogu talagalay inay dhiiga kaa yareeyaan way badan yihiin waxayna ku xiran tahay conditionka aad qabtid ma kaliyaha kaa fariistay oo kugu koosgaray in dhiigu kugu karo ma subagaa kaa badan ma stresska kaa badan ma waxaa galaaniska ama maxaa la yiraahdaa qanjirada jirka ma kaa halaysan oo burooyin kaa soo baxday underlying conditionka dhiigkarka kugu kalifaya baa dhakhtarku wuxuu sameynayaa inuu underlying conditionkaas ama cudurrada kugu kalifaya dhiigkarka inuu daweeyo mideeda kale wuxuu ku baysti gareynayaa dhakhtarku dawooyinka aad qaadanaysid oo dhiigkarka u qaadanaysid qofkani ma kaliyuhu la yahay dawadan aan siinayaa oo dhiigkarka ka yareynaysaa
kaliyaha ma affecti garaynaysaa qofkaani ma beerku leeyahay kaliya dawada aan siinaya ma beerkay ka hadlaynaysaa haddaan u siiyo dhiikarka qofka aan haddaan dawo siiyo qofkaani wadnuhu leeyahay oo dawadaani ma wadnahay dilaysaa oo qofkaani waa u dhimanayaa haddaan dawadan siiyo so dawooyinku waa badan yihiin dhiikarka loo cunaa laakiin dhakhtarku wuxuu qiyaasayaa xagee qofkan dhiikarka uga yimi dawadan side effectigeedana ma affecti garaynayaa in qofkan uu qaato hadduu dhiikar qabo marka dhakhtarku dawooyinka uu qaadanayo of course wuu kula talinayaa wuu kuu sheegayaa waxyaalaha aad qabtid oo dhiikarka kuu koosgareeyay wuu kuu sheegayaa meesha yani cudurku ka jiro ama lagaa haysto laakiin adiga laftigaagu waa inaad tiraahid anigu dawooyinkii ma fahmaayo maxay u koosgaraynayaan maxaan u cunayaa maxaan u qaadanayaa su-aalo badan waa inaad weydiisid dhakhtarow cudurkaasaan qabaa cudurka yani kaba soo qaad dhiikar buu kuugu qoray dawadii hadduu dhiikar kuugu qoray laakiin cudur kale aada isku og tahay waxaad leedahay dhakhtarow anuu sonkor baan qabaa dawadaani sonkorta ma igu kicinaysaa haddaan dhiikarka u qaato dhakhtarow wadna xanuun baa qabaa hadda ka hor layga helay ma igu karinayaa yani wadnahaygii ma dhibaato usii geysanaya haddaan dhiikarka u qaato tan waxaad kaleetoo odhanaysaa dhakhtarow haddii aan yani su-aalo badan baad weydiinaysaa waxaad weydiinaysaa cuntooyinka aad qaadan kadhid haddii cusbada aan iska yareeyo ma wax dhibaataaba iga yareynaya cusbadu xitaa kaa tastigaraynaya jirkaagu tastigaraynaya inta cusbo ku jirta ama calcium ku jir potassium ku jirta jirkaagu tastigaraynaya dhakhtarku laab uu qaadanaya wuu tastigaraynaya marka su-aalahaad qabtid ama dawooyinku kuu qorayo dhakhtarku baad weydiinaysaa maaha only markuu kuu qora inaad weydiisid laakiin mar walba waxaa fiican inaad ku noqotid oo tiraahid waan hilmaamay waxyaalahay dawadani ugu koostagaraynaysa maxay side effectigeeda maxaa kamid ah dawadan dhakhtarku aduu meesha kuu jooga adaa yani waxaad ula kulmaysaa ama inuu ku daweeyo rabaa dhakhtarku inuu ku dhibo ma rabo marka adi kumana ma garanayo waxa maskaxdaada ku jira ma garanayo waxa aad qabtay dhakhtarku ilaah ma ahan waxaa fiican adigu inaad iska warbixisid oo tiraahid waxaasaan rabaa su-aalahaasaan qabaa saasaa la ii hayaa waxaana igu soo kordhay markaan dhakhtarow qaatay waxaan dareemayaa dhiiggii inuusan iga yaraanin maxaan samayn karaa hadduu damco xitaa dawada inuu kaa bedelo reasonka iga bedelaysa maxay yihiin haddii aad xitaa haddaadan luuqada garanayn kaxayso qof luuqada garanaya ii sharax mar walba jirkaaga adaa iska leh caafimaadkaaga aduu ku anfacaya mar walba adigii waa inaad ka hadashid oo dawada lagu siiyo aad ka yani aad su-aalaha ka qabtid mideeda kaleeto haddaad dawadii joojisid iyadoo kuu socota hadda kuma anfacayso waxaaba laga yaabaa inay dhib kuu keento jirkaagii bartay aad joojisay hal mar in inuu dhiig kuu koraaba laga yaaba dhibaato kasii xun kuu gaarsiiso so haddii dhakhtarku dawo kuu qado adigo aan isaga u tagin oo dawadan saana igu kaliftay mana raba inaan isticmaalay mid kale ma ii bedelaysa ama ma iska joojin karaa ha iska joojina oran dhakhtarkan habaarin dawo aan rabin buu iisoo qor haddaa iska joojisid oo intaad cuntay oo bilowday aad iska joojisid waxaa laga yaabaa inay dhibaato kuu keento oo kugu sii siyaadiso dawadii mideeda kaleeto inta aad yar tahay kaba soo qaad waa yadhahay caafimaad baad qabtaa laakiin dadkaagaa dhiikar qaba sonkor baa aabahaa qabaa hooyadaabaa qabtaa adna qof dhalinyaraha baa tahay ogow inuu dhiikarkii aad u leedahay riski factor inaad u leedahay oo daciif u tahay oo kugu soo socdo cudurka waalidkaa laga helay adna waa kugu soo socdaa oo jirkii waalidkaabaad wadataa ilaahay baa ku abuuray laakiin inta ugu badan jirkii waalidkaabaad wadataa waxa waalidkaa qabana waad la qabaysaa haddaad weliba la nooshahay oo cuntada cuni jiray kugu soo koriyey oo dhaqankiisi kugu soo koriyey waad la qabtaa hooyadaa way ku nuujisay wixii oo dhan baa wuxuu qabo aad bay u sareysaa inaad qabtid marka maxaa samaynaysaa markaaba ogaatayba in waalidkaa uu dhiikar qabo
waxyaalaha aan dawada ahayn baad samaynaysaa. Waxaad samaynaysaa inaad cusbada iska yaraysid, waxaad samaynaysaa inaad exercise garaysid, waxaad samaynaysaa inaad kiniiniyada dhiigkarka kugu karinaya iska yaraysid, inaad daroogada iska yaraysid, inaad tabaakada iska yaraysid, inaad sigaarka iska yaraysid, inaad maxaan ku idhaahdaye xanuunka painkillerka ah oo dawooyinka painkillerka loo qaato, xanuun baabiyaha loo qaato inaad iska yaraysid, kuwa loo qaato qufaca ama hargabka inaad iska yaraysid. haddayan daruur ahayn naftu kaa baxayn aad iska yaraysid, waxyaalaha kaleeto natural kula tacaashid. exercise garaysidna inta aad weigtkaaga aad la dagaashid normal caafimaad qaba, ma ahan inaad anorexic iska dhigaysid, laakiin aad baruurta iska yaraysid. marka dawooyinka oo dhiigkarka aa u qaadan lahaydeen waan sharixi lahaa, laakiin waxay ku xiran tahay dawooyinku conditionka aad qabtid. dawo khaas qof kaliya dawo yani dawada qofkaana qaadanayo adiga kuma qofkaan dawada dhiigkarka u qaadanayo inay adiga ku shaqeynayn baa laga yaabaa. marka waa inaad dhakhtarkaaga u tagtid. laakiin haddii aad dawooyin khaas ah aad su-aalaha ka qabtaan hoos baa kusoo qori kadhaan. waxaan idiin sheegi karaa dawada khaaska ah conditionka la siiyo, waxyaalaha ay u xun tahay iyo waxyaalaha u fiican tahay iyo side effectigeeda waan idiin sharixi karaa. marka hoos baad kusoo qori kartaan, su-aalaha ka qabtaan. dawadaasaan qaataa, magacaa la yiraahdo, waxaan rabi lahaa inaad moor ka bixisid, ii sharaxdid waxyaalaha ay ku xun tahay, waxyaalaha ay ku fiican tahay, side effectigeeda iyo faa'iidooyinkeeda. informationkan hadda aan sharaxayana isagoo ingiriisa baan hoos kusoo qorayaa meesha ka heli lahaydeen. walaalayaal waa mahadsantihiin. soomaalidu siday u badan tahayba yani dhiigkarku aad buu ugu badan yahay soomaalida. stresska ha la iska yareeyo, exerciseka ha la badiyo, subaga ha la iska yareeyo, cusbada ha la iska yareeyo, maxaan ku idhaahdaye tubaakada ha la iska yareeyo, khamrada ha la iska yareeyo, daroogada ha la iska yareeyo, sigaarka ha la iska yareeyo, caleenta oo nimanku cunaan ha la iska yareeyo. taaniyan haddii adiga waxaa laga yaabaa dadku inayan wada intaas aan soo sheegay oo dhan qof kaliya inuusan wada qabinin, laakiin waxaa laga yaabaa inaad caato tahay laakiin aad caleen cuntid, aad sigaar cabtid, aad khamre cabtid, aad daroogo kale cuntid, hadda dhiigkarka waa kugu dhacayaa. waxaa laga yaabaa inaad gabar muslimada tahay oo wanaagsan oo waxaasoo dhan aadan cuninin, laakiin aad buuran tahay, aad subag badan cuntid, cunto baruur badan cuntid, aad cusbo badan cuntid, aadan exercise garaynin, haddana iyadina waa kugu dhacayaa. marka dadku ma wada qabaan kulli, laakiin qaar ka mida baa laga yaabaa inaad qabtid. marka walaalow intaad caafimaad qabtid, intaad hadhow ka shalaayi lahayd, hadda yani walaalayaalo waan ka wadaa jamc ahaan, waxaa laga yaabaa hadda inaad yar tahay oo caafimaad qabtid oo sigaar cabaysid oo anigu waa yarahay yani, laakiin hadhowta markii dhiigkar kugu dhaco ama stroke kugu dhaco oo jirkaaga shaqayn waayo berrita waa ka shalaayaysaa. intaad ka shalaayi lahayd walaalow caafimaadkaaga ilaasho, walaalayaalow exercise gareeya, cuntada aad maanta cunaysid oo aad ku buuranaysid. anigu include me yani ma aha anigu inaan caato ahay, laakiin yani waxaan ka wadaa cuntada aad jeceshahay oo hadda aad rabtid inaad cuntid hadhow bay kaa daba imaanaysaa. raaxada aad hadda leedahay waa seexanaya anigu hadeer tabar uma haya inaan jidadka ordo, hadhow ay naga daba imaanaysaa. markii xanuun wadnigu ku istaago oo dhiigkarka kugu dhaco oo dhibaato noo timaado ma seexanaysid, waad xanuunsanaysaa, waa sakaraadaysaa. waxaa leedahay walaalayaalow haddaan waagii aan exercise garayn lahaa maanta hadda midha caafimaad baan qabi lahaa. marka ilaahay jidka saxa ha nagu toosiyo, caafimaadkan allaha noo dhowro, laakiin inaguna action baa la imaanaynaa. baryo ilaahay kaliya laguma, ilaahay awood banasi, ilaahay baryadiisa way fiican tahay,
laakiin ilaahay wuxuu nagu awood buu na siiyey aan ku exercise gareyno awood buu na siiyey aan xumaanta isaga yeelo ilaahay anagu mas-uuliyadana saaray ilaahay mas-uul buu naga yahay laakiin actionkeena waa xukumi karnaa tallaabooyinkan qaadi karno waan xukumi karnaa ilaahay baa ii keenay ilaahay wax walba waa xukumaa waa ogahay laakiin adiguna mas-uuliyad baa lagu saaray marka walaalayaal waa mahadsantihiin su-aalihiina soo qora السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Please share this video, like and share, subscribe and share. Thank you. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.